kulanti waxana wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee kaabtanka isboortiska waxaana si wada jir idinkugu daadihinaya cabdi qaadir boos iyo weliba luulu shaalu ka bogoysho wacan kaabtanka isboortiska waa kulanka dhalinta maanta ha iskarinin dhiigo kurba yuusan kugu ridin kelmadaheena qosolka kuleelqa saxa u arag barnaamijka kaftanka isboortiska waa barnaamij ahadlaha wuxuu soo galaa 7 fiidnimo saacadda geeska Afrika isqabqabsiga muran ayaa ka dhaxaloosmay kooxaha damul jadiid iyo kooxda baarlamaanka kuwaas oo isku haysta sharci muran dhaliyo xidigaha gobolka Banaadir u diidaya inay ka qayb galaan tartanka Champions League ee Soomaaliya kooxdan shanta xidig ka goban ee damul jadiid ayaana walwal ka qabin qatarta kaga imaata kooxda tirada badan ee baarlamaanka oo qaarkood loo baasi karo kubadaha dollarka halka qaarna ay u ciyaaraan si xalaal ah si kastaba ha noqotay qobarada waxa doorasta ayaana aaminsan in labadan kooxba ay daneynayaan in ciyaartan muranka badan ay ku idlaato natiijo barbar ah si waqti dheeraad ah loogu daro taas oo labada naadi u saamaxaysa inay ku sii jiraan garoonka xulka inkastoo aan la ogeyn sida ay ku suuroobi doonto damacaasi maadaama saraakiil ka socota xiriirka FIFA ay haatan u soo daawasho tageen ciyaartan iyagoona soo jeediyay in labadan kooxba lagu kala saaro penalty ama gool kulaad si loo furo liig cusub bartamaha bisha 8aad ee sanadkan taageerayaasha xulka Soomaaliland ayaa u dabaaldegay isbuucan 25 guuradii ka soo wareegatay markii la aas-aasay kaabka aan u diiwaan gashnayn xiriirka kubadda cagta caalamiga ee FIFA horyaalkan aan goolashiisa la tirsan ayaana la siiyay mudnaan dheeraad ah iyadoo taageerayaasha Soomaaliland ka dhaadhicinayaan madaxda FIFA in horyaalkooda lagu soo daro tartamada caalamiga ee dunida maadaama ay hubaan in ciyaaraha ka dhaca gudaha Soomaaliland ay helaan garsoor cadaalad ah walow FIFA aysan u muuqan natiijadaasi la taaban karo dhanka kale gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa u dabaaldegay dhankooda maalinta la gubo qalabka isboortiska ee aan la isticmaalin ama duugoobay taasoo xasarad isboortiska dhaxdhalisay labada taageere ee xifaalta ka baan ka dhaxeeyo jahwareer baasan ayaa ka taagan gudaha garoonka Howlwadaag Stadium ee galbeedka Beledweyne kadib markii laba kooxood oo xifaaltan baani ka dhaxeeyo ay foodo isdareen taageerayaasha labada dhinac oo isku adeegsanaya gawaarida isboortiska ayaana dab qabadsiiyay qaybta nasashada ciyaarta iyagoona maalintii 7 dhagxaan iyo leesaro isugu jawaabaya taas oo dhalisay inuu soo dimo darbigii garoonka xilli booliiskii sugaya amniga garoonka ee amisom ay sheeda uu ka daawanayeen ciyaartan oo la mid ah tan Premiershipka Ingiriiska gelinkii hore ee saakay ayay kooxda damajadiid guul taariikhi ah ka gaareen kulan muran hareeye oo ay la ciyaareen kooxda tirada badan ee baarlamaanka xidigaha baarlamaanka ayaana haystay inta badan kubadaha iyagoona ku gacan sareeyay kulankan lagu go'aaminayay masiirka gobolka Banaadir 90 daqiiqo ee ciyaarta ayuuna bedel ku soo galay garoonka kabtanka damajadiid Xasan Sheekh isagoona dhaliyay kubad offside oo su'aalo ay ka keeneen wariyaashii ciyaartan falanqeynayay waraysi uu bixinaya ciyaarta kadib xidiga Xasan Sheekh ayuuna difaacay goolkaas isagoona sheegay in kooxdiisa haatan ay iska sii xaadirayso finalaha Agoosto walow aan la ogeyn sida natiijadan ay ku aqbali doonaan kooxda odayaasha hawiye oo la saamiga ugu badan ee milkiyada garoonka gobolka Banaadir tababarihii hore ee kooxda xidigaha geeska laab Saalax ayaa iska casilay shaqadii uu ka hayay kooxda xilli tababaraha lagu naanayso Mourinho kooxda uusan kula guuleysan wax kaaba sanadan 45 jirkan aan yaraantiisii waqti u helin isboortiska ayaana ku fashilmay inuu ka soo dhalaalo shaqadiisa isagoona kooxda ka ciiriyay xidigo ay ka mid yihiin Ismaaciil Danan BK iyo xidiga haata soo laatay Mursal Muuse xilli hore uu ku fashilmay soo xirigelinta laacibka dabeesha liido aan xamili karin ee dayacda luurshe kooxda ayaana haatan isku afgaratay inuu leeliyo tababaraha cusub ee Axmed Wali Furle kaas oo ka soo baxay akademiyada kooxda muusikistaan ayaana haatan looga fadhiyaa in naadigu ka soo saaro cadaadiska dhanka dhaqaalaha walow qudhiisu aanu ka soo jeedin qoys leh hibi sports isagoo ka garab ciyaaraya xidigaha Nimcan Hilaac iyo Yurub Geeyo maadaama kooxda haatan loo magacaabo tababaraha ay saaxiibka dhow yihiin ee Furinle inkastoo la fahamsan yahay in laacibkan aan loo wakiilan doonin line up dambe oo loo dirsanayo qaaradda Yurub xidiga
ismaaciil shakeeti oo si hoose ugu xog warmay channelka sportska ee shaaciye ayaa tibaaxay inay ku adag tahay inuu dhameysto kaliya 30 minut kulanka El Clasico ee Ramadaanka. Laacibkan 7 ilbiriqsi ka ciyaaray seasonkii hore ee soo dhaafay ayaana haatan qorsheynaya inuu la kulmo dhakhtarkiisa isagoona u sheegay inuu ku dhaxmatago gudaha xerada tababarka si uu helo warqad ka mamnuucaysa kulankaasi heerka caalami ah ee la ciyaaro wax ka badan 22 saac xilliyada Yurub. sidoo kale xidigaha Axmed Saki, Deyo Shooli iyo Digriyo ayaa dhamaantood hore u qaatay warqadan u sii ogolaanaysa inay ku sii jiraan stadiumka Kushiinka. waan filayaa inaad hore u daawateen laacibad u shalaynaysa xidig hore kaga tagay kursiga keedka isagoo la dhacsanin qaab ciyaareedkeeda. bal markana ila daawo xidig u ilmeynaya laacibad burburisay qandaraaskiisii kordheesh aqalka. khubarada sportska ayaana fahamsan in xidigahan wadajir u soo aalmiyeeyeen ciyaarta ka hor iyagoona ilmeynaya haddii midkood kan kale uu kaga tago kursiga keedka uu helo koox kale oo kaga fursad roon. daayartan badsatay aflaanta hindiga ayaana laxan sportis oo cusub ku soo kordhiya baraha bulshada xilli haatan laga cabsi qabo in tiro dhallaana qorsheynayaan in garoonka Facebook ay ku soo galaan firmisoonkan aadka u jilicsan. waxaa la baafinayaa laacibka Salaad Cali Jaale markii cid ugu wardambeysana wuxuu Falastiin iibaan kula dagaalayay in qodobkiisa VOA ka hormaraysa kan Obama iyo Putin ama xiriirka toleed uu jari doono. haddaba cid allaali cidii aragtay xidigaasi aan aaminsanayn in dadku biyo nadiif haystaan waxa laga codsanayaa inay ka dhaadhiciyaan inuu ka soo muuqdo doorashada dambe ee dalka maadaama qudbadiisu taageerayaasha uga qosol badan tahay kuwa kale. baafinayaa xidiga maquusta ee General Morgan markii cid ugu wardambeysana 30 jeer ayuu ka ciyaarayay garoonka Kismaayo isagoona hal jeer xitaa ku guuleysan. haddaba cid alaaliye cidii aragtay xidigaas muhiim ku ah kooxda kacaanka waxaa laga codsanayaa in boos joogta ugu raadsan kooxda xildhibaanada Jubbaland si muuqiisa loo helo ama waxaad u sheegi kartaa maqoslahaas in aad ku riyootay isagoo Kismaayo kabtanka ah isaga oo farxad la ilmeen dooneen. sidoo kalena waxaa la baafinayaa laacibka baska raacday ee Saadaqsayga markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in fanaankii doonaya inuu soo caanbaxo maaliyadda uu ka dhigo laacibadii uu la heesayo. haddaba cid allaale cidii aragta laacibkaasi aan shal carbida isticmaalina waxa laga codsanayaa inay ku wargeliyaan in fanka uu isaga fariista kana dilid garay nambarada Cabdifataax Yare iyo Hani UK si uusan fanka ugu soo laaban ama ku dar koox tabliiq ah oo sanad away ku baxaysa. baafinayaa xidiga halkaas u qaraxday Xuseen Nuuriyo markii cid ugu wardambeysana wuxuu isu haystay fanaanka ugu heesaha badan Yurub. haddaba cid alaaliye cidii aragta laacibkaas la jooga Salaad Cali Jaale waxaa laga codsanayaa inay ku wargeliyaan in heesiisa kaliya ay dhageystaan tolkiisa haddii uu maanka ku hayo in uu show qabsadana waxaad la sugi kartaan soo dhaweynta Cali Maxamed Geedi isagaa samatarka noqon doona. saynu ku soo gabagaban doonaa barnaamijkeena kaftanka sportska galabtana barnaamijka waxaa si wada jira idinkugu daadihinayay Luul Shaaluy anigoo Cabdiqaadir Boosa barta aan ku leenahay Facebook ayadna ka daalacanaysaan halku dhigeena waa lagu xanto lagu xasuusta ayaa koreysa waa bahda barnaamijka isku duubanood la gaashaankiina noloma keeno dalabka heestuna waa wada jirkii Ilhaan Falaba iyo Hooda Axmed from Nairobi heesti anigu Somaliland dalkayguna Somaliland Sir Maxamuud Alta iyo Cabdiraxmaan daawasho wacan